dagaalkii Shimbira Kurre qarnigii 16aad geeska Afrika waxa uu galay marxalad dagaal diimeed iyo siyaasadeed labada quwadeed ee waaweyn ee gobolka markaas ka talinayay waxay ahaayeen boqortooyadii islaamka ahayd ee Cadal oo xarunteedu ahayd Harar iyo magaalada Saylac markaasna loo yaqaanay Harar al-Muqaddasa ama Harartii barakaysnayd hogaamiyihii ugu sareeyay uguna saameynta badnaa ee boqortooyada Soomaar wuxuu ahaa Imaam Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi oo Soomaalidu u taqaano Ahmed Gurey boqortooyadii labaad ee iyadana ka jirtay geeska Afrika waxay ahayd boqortooyadii Xabashida Abyssinia oo markaas xukumayay gaal lagu magacaabi jiray Labna Dangal ama Daawid Labo oo xaruntiisu ahayd Amara gaar ahaan Shawa Xabashidu waxay ahayd boqortooyo Masiixi ah oo Orthodox Christian oo isku dayeysay inay ku faafiso awoodeeda iyo diinteeda muslimiinta Harar iyo xeebaha Soomaalida ku nooleed muddo qarniyo ah ayaa labada dhinac u dhaxeeyay cadaawad iyo weerar isdaba joog ah laakiin sanadkii 1529 ayaa la gaaray xilligii isbeddelka taariikheed ee geeska Afrika dagaalkii Shimbira Kurre waxa uu noqday mid ugu horeeyay ee Ahmed Gurey si buuxda ugu muujiyo awoodiisa iyo awoodda boqortooyadii Cadal isla markaana uu ku burburiyay kibirkii iyo qabkii boqortooyadii Xabashida sababaha horseeday dagaalka Shimbira Kurre waxay ahaayeen dhowr arrimood oo isku dhafan waa midda koowaad ee Xabashidu waxay duulaan ku ahayd muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaalida si aan taa ugu xaqiijiyay gaalka Labna Dangal wuxuu amar ku bixiyay in la burburiyo magaalooyinka muslimiinta lana gubo masaajidda iyo suuqyada muslimiinta lana gaadho Harar Saylac iyo Dawaaro iyadoo amarkiisa la furinayo dad badan oo muslimiin ayaa la laayay hantidoodii la boodbay waxaana lagu xadgudbay dumarkoodii iyo carruurtoodii waa sababta labaad Ahmed Gurey waxa uu doonayay inuu mideeyo muslimiinta geeska Afrika waxa uu arkayay dagaalka mid diini ah jihaad oo ay waajib tahay in la galo si loo difaaco muslimiinta iyo islaamka wuxuu helay taageero xooggan oo ka timi qabiilooyinka Soomaalida sida Daarood Dir Isaaq iyo Hawiye iyo sidoo kale muslimiintii Harar Baale iyo Dawaaro ku nooleed sababka saddexaad ee dagaalkuna waxa uu ahaa muranno xagga xuduudda iyo gibirka ah Cadal iyo Xabashida waxay isku hayeen dhulka Ifaad iyo Dawaara oo ahaa xuduud istiraatiiji ah oo ganacsi goobta ay labada ciidan isku arkeen waxay ahayd Shimbira Kurre oo ku yaala dhulka buuraha ah ee u dhow magaalada Baali ee koonfur bari Itoobiya maanta magaca Shimbira Kurre wuxuu macna ahaan ka yimi luqadda Amxaariga oo lagu fasiri karo buuraha leh cawska ama cawska duurka ah goobtaasi waxay ahayd meel istiraatiiji ah oo ay Xabashidu isku dayeysay inay ka difaacaan dhulka buuraleyda ah ee ka koreeya ciidanka Imaam Ahmed Gurey tiradoodu waxay ahaayeen ilaa 12 oo dagaalyahan badankooda waxay ahaayeen Soomaali muslimiin oo ka kala socday qabiilooyinka Daarood gaar ahaan Absame Mareexaan iyo Xarle iyo Gari waxa kaloo weeliyay qabiilada Dir oo Isaaqna ka mid yahay waxay ciidankiisu wateen farda kadlaha iyo xawligay ku ordayaan lama jeerto hub ahaanna waxay ku jooqnaayeen waran gaashaan seef oo ah hubka dhaqanka ee Soomaalida waxa kaloo wateen qoryo fudud iyo madaafiic fudud oo ay ka heleen Carabta iyo Turkidii Cusmaaniyiinta marka aynu ciidanka barbar dhignay ciidankii Labna Dangal uu goobta la soo xaadiray tiradooda waxaa lagu qiyaasay 40,000 ilaa 50,000 oo askari waxaa horkacayay taliyayaal badan oo Xabashi ah sida Dalgahaan ama Degale Wolde Giogros iyo saraakiil kale waxaana hubkoodu u ahaa seef waran gaashaan iyo qoryo duug ah oo Yurub laga keenay inkasta oo Xabashidu aad u badnaayeen haddana ma lahayn abaabul iyo istiraatiijiyad dagaal oo adag sida Imaam Ahmed Gurey oo kale dagaalku wuxuu dhacay bishii Agoosto sanadkii 1529 subax hore ayaa labada ciidan isku kaahinteen iyadoo Xabashidu ay ku tashanayeen tiradooda halka Gurey uu ku tiirsanaa Ilaahay istiraatiijiyad iyo niyad diimaysan Imaam Ahmed Gurey wuxuu ciidankiisa u kala qaybiyay 3 garab ka midig waxa hogaaminayay Nuux bin Mansuur garab ka bixdix waxa hogaaminayay Garaad Abubakar isaga Ahmed Gurey ana wuxuu joogay bartamaha isagoo wata fardoolayda ugu xoog badan markii uu dagaalku kululaaday ee uu socday ilaa galinkii dambe ciidanka Xabashidu waxay bilaabeen inay kala yaacaan kadib markii saraakiishoodii la qurjaray Labna Dangal laftigiisu cagaha ayuu wax ka dayay isagoo la baqayriyay ciidankiisii dagaalkii waxa uu ku dhamaaday guul weyn oo muslimiintu gaadhay waxaana lagu dilay kumanaan askari oo Xabashi ah dhulkii Xabashida ayaa gacanta u galay Ahmed Gurey guushaasi waxay ahayd bilowgii ololihii jihaadka weyn ee Ahmed Gurey hogaaminayay boqor Labna Dangal waxa uu qaxay dhulka sare ee Gondar iyo Shawa isagoo ka baqayay inuu u gacan galo
Axmed Gurey. Dagaalkii Shimbira Kurre ma ahayn oo kaliya dagaal laba dhinac oo kala caqiidaha isku arkeen ee wuxuu ahaa isbedel taariikheed oo geeska Afrika ka dhacay. Waa dagaalkii uu Axmed Gurey ku muujiyay muslimiinta bariga Afrika inay yihiin xoog diimeed iyo ciidan abaabulan, in xabashidii kibirtay la baray cashar cusub, in geeska Afrika uu galay xilli cusub oo islaamku si xoog leh ugu faafay gudaha Itoobiya iyo meelo kale. Sidoo kale dagaalkaas ayaa saldhig u noqday isfahankii iyo xiriirkii ka dhaxeeyay Soomaalida iyo Turkiga Cusmaaniyiinta, kuwaas oo markii dambe taageeray Axmed Gurey si uu uga adkaado xabashida oo xulafo la ahayd Burtuqaal. Waxaad igala socotaan Juquraafi, waa madal aan ku soo gudbinno tagtadii iyo taariikhdii Soomaalida. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan page-ka follow saar, YouTube-kana subscribe saar.